السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed ee ugu xiran. Waxaan rajeynayaa dhammaantiin nabad iyo caafimaad qabtaan. Alxamdulillaah annagana waa fiicannahay. Dadka inta hore noogu xirneyd aad iyo aad u mahadsan yihiin. Inta cusub ee hadda muuqaalkan arki doonto ama muuqaalada hore u arki jirta laakiin aan subscribe noo ahayn waxaan leenahay soo dhawaada. Subscribe noo saara adiga waxba kaama dhimayso annagana hor socday noo tahay. Kambalelka furta aad iyo aad u mahadsantihiin. Isku waxweeyaan X control afkooda arkada X control afkooda in la adeeg intaa ka gaara asas ugu wareega anuu wax duubayo waxweeyaan dadka ayagaba ka xabsiinayo hadaa mooto saaranta hadaa gaari saaranta taleefanka laga dafa waa daf iyadoo wixii maxaa la dhahaa adigaba laga yaabay xaalad ilaahay og yahay inaa wax ku duubaysid haddana dadka wadnaha kusii jarayaan. maanta waxaa u soconaa suuq boocle inaad taqaaniin in kaleeto adinkaan u kala sheegaysiin intaan aqoonin aniga diyaar waa inaa baro. waxaa arki doonaa waxyaabo badan aan kugu sharxi doonaa muuqaalka sidoo kaleeto qiimaha dad badan waxaa jiraan Madiina wax ka rabaan ayadana waxaan rabaa in muuqaalkan uu noqdo tilmaam ama warbixin dhameystiran inay ka helaan. laamigan wuxuu ka soo tagaa X control afkooye wuxuu soo aadaa xoosh ma ku ekaado xoosh uu ka gudbaa kaxdu aadaa laakiin macnaha iskuuskan xoosha kala baro markii X control afkooye laga soo tago ilaa kaxda goolada galaysaa ma ahane laamiga ma ka harayo nadiif waaye. anaga maanta waxyaabaha xoogaa aan ka liidano oo wadankeena u baahan yahay inuu ka soo kabsado waxweeyaan caradan laamiga dhex taalo waxaana sababayo xaafadii jidadkoodii oo baxaad in xaafadaha dib loo habeeyo wadada carada laga nadiifiyo calal aqal haddii aan la nadiifin karin dadka degan in la yiraahdo nadiifiya in lagu qasbo. dadka qaar xoogaa waxay u arkaan markaa dhaho qof walba gurigiisa hagaajiyo ha nadiifiyo haddii uu nadiifin waayo ha lagula xisaabtamo in ganaaxa laga qaado waa qaldan tahay. dowladda loogu talagalay inay wax nadiifiso walaal anaga dowlad soo kabsanayso wadan soo kabsanaya ka hadlaynaa ma ahana ma ka hadlayno wadan dowladiisa weligiisa aysan burburinin amaba weligiisa aan burbur arkin ama 50 sano ka hor ee ugu dambeysay burbur laakiin dal waxaa laga hadlayaa wax walba oo hadeertaan ka socdo ay yihiin wixii hore wax ka duwan. dad macnaha hadda rajo ku wada jirto anagana rajo ku noolaanahay ilaahay rajadeena noo rumeeyo ilaahayna wadankeena ha ka dhigo dunida wadamada ugu ammaanka badan ugu quruxda badan ugu bilicda badan ugu nadaafada badan. maanta kaliya waxaa ka maqan oo aan isdhihi karo dadaal haddii la sameeyo waa la gaari karaa waa nadaafada marka haddii aysan dowladdu awoodi karin inay dad lacag ku siiso waa in shacabka ayaga ay wax qabtaan. adeer adiga maxaa qabanay midda kale waxaa la dhahay quraanyo aruurtay bulac way jiitaa qof walba hadduu hortiisa nadiifiyo wadankii dhan saasuu nadiif ku noqonaa oo adigana ma lagu dhahayo meelo kale soo nadiifi laamiga xaaq ma lagu dhihin laakiin waxaa lagu dhahay goob ganacsiga meeshan kuugu taalo Soomaaliha hortaada nadiifi bis wax kale ma laga rabo. waxaa laga yaabaa laamiga inaa 20 mitir ka haysatid ama inaa 15 mitir ka haysatid intaas bis nadiifi waa nadiifinaysaa qofka kaasoo horteeda kan kuugu dhakan qalaas wadanka saas uu nadiif ku noqday. qof walba oo Soomaali uu dareemi karaa magaalada Muqdisho markaa ka maqan tahay xaaladda ay ku jirtid markaa soo gashid wadanka magaalada Muqdisho bis ma ahan hadalkayga afkayga Muqdisho la qabsado waxaa u maleynaa in oo loo qaato Soomaaliya inaa Muqdisho u arko Muqdisho caasimad waaye laakiin Soomaaliya oo dhan aniga seema ii tahay Soomaaliya milaaskamboon ilaa laas casar macnaha hadaa wadanka soo gashid waxaa dareemay subxaanallah wax aan la qiyaasi karin dadka kule qurbaha wax badan ku maqnaaya taana dareemi karaan anagana waa qiyaaseena nolosheena dhan waxaa u maleynaa wadankan inay ku xiran tahay alxamdulillaah laakiin wadaninimada markay kugu jirto oo isleedahay wadankaaga wadana ahayn ma ku anfacayo wadankaaga wadana ahayn ma ku noolaan kartid
dareen cajiibaa leedahay. dadna waxaa laga yaabaa inay yaaban yihiin ay dhahayaan dadkan wadanka ee ka sheekeynaya ma nolosha noocaana ma mootooyinkan ma wasaqdan ma kan adeerada kanaa leena maxaa ka bedeli karnaa anaga iskuuska xoosha imaana marka iskuuskan xoosh komantiya hadda kahor waxaa ku arkay fiidiyo aan kasoo duubay magaalada okay sariix xooshna ugu aadi waa kuwaana inti karaankeyga ah waa ku aadiye oo ay dadka dhahayaan sarahaasna ugu aadi inaa si fiican u aragnaa rabnaa okay awoodeeda intaanay noqoto waana ku aadiyay sababtoo ah wadadan zaxmad waa weyna yartahay macnaha hal dhinacay noqonay laba dhinac sida hadda aan kusoo soconay ma noqonayso marka saa rabto uma duubi kartay laakiin sarahan qadiimi waaye yoominal ayaa meeshaan oo shidan oo iskuuska ugu quruxda badan magaalada ahna in la arko way dhici kartaa iskuuska xoosh waaye okay dhanka Madiina aadaynaa marka Madiina hadaa warbixin idinka siiyo horta laamigaanay leedahay waana laamiga magaalada Muqdisho ugu jaamka badan markay jaam noqoto laana waa hal dhinac in la weyneeyaa jeclaan lahaa waa soo leexana wadadan hadda interlog waaye laakiin waa wadada suuq boco la gelisay markaa rabtid marka hadda fiiriya laamiga dhowr balooda kasoo tagnay baloogyada waa aragtaan hadda meeshaan iskuus waay balooga ku haray mid kaleetaa noo dhow baloog kaleetaa ku haraayo kan inuu baloogii labaad yahay umaleynaa ma aana xisaabinin baanoo mashquulsanaa soo kala wadada laakiin waxaa idiin sheegaa dhulka hadda eriyadan ku yaalo hadda ha dhahdid halkan aan waxaan ka rabaa dhul 10-20 oo 100,000 xitaa ma helaysid sababtoo ah waxaa la gadaa lacag badan suuqiga ku yaalo waa meel ganacsi laamigina uu dhow yahay saasay tahay cabirka oo xaafadan Madiina oo dhan waa 20 guryaha qaarna 10-20 ay u jarjaran yihiin marka wax yar aad soo sigatid waxaa laga yaabaa 90,000-80,000 inaad 10-20 ku heshid haddaa sii sigatid oo kaleeto 70 laakiin xoogaa badanaa sikanaysaa dadku marka dadka qaar waxay ku leeyihiin dhulka qiimahan lacagtan lacag waaliyo waa see qiimahan loo gaarsiiyey annaga maanan gaarsiinin bale aniga ka shaqsiyan iyo annaga shirkad ahaan saa u shaqeynayno waxaan jeclaan lahayn in meeshaan oo kaleeto la siiyo 10,000 iyo 15,000 laakiin annaga waxaan awood u leenahay ama annaga aan wax ka bedeli karna ma ahan maanta wadanka haddii meelaha oo hadda meeshaan oo kaleeto lacagteeda 50,000 60,000 40,000 ay ahaan lahayd qof walba Soomaaliya guriga asileeyo deganaan lahaa qof kale ku jiri lahaa ma jirto laakiin suuqa sida waa laga dhigay aniga kamaanaan dhiginin waxna kama bedeli karno marka xaqaa'iqda idiin soo gudbinaysan idin xanuujin qofaa inta ku soo wuxuu ku leeyahay Madiina dhulka rabaa waxaa haystaa 20,000 dhul laamiga u dhawaana rabaa walaal ma jirto ma lagu helo qiyaasta laamiga wuxuu u dhow lacag badan uga tashanay laamiga ku soo laabana suuqa waa ka soo dhamaana waana la dhiso waa la qurxiyay soo dhawaada